وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شيخ قفك أولياء أو رب الدورتي محال لقو يقانا لأن ضدبا أرانيا ما أديك با يقان إن أو شيخ جيلاني هيولي. سؤاشان هذا هو الرئيسة هرت اختيار مجلس تقاري ورب الدورتيدو وعا إلهي دورتا أنبياء لكن والله كرامة يا ضد كان كلي أهل كرامة النقدان روح أولي أهم حالو يقانا جواب تيدو وحي تهي إلهي بأنه الشيغي على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون بور إلهي وحال إله أولياء كو إلهي رميي وكانوا يتقون إلهينا كعب صده لكن waxaa jira halka ku jira karaamaynta iyo gaarsiinta kashfi laga qaado oo uu qofkii asagoo jooga Yurub uu arkayo Soomaaliya kale iyo Afrika oo Ilaahay uu bixiyo oo uu ahlu khadwa noqdo oo uu inta ka soo talaabsado Yurub uu hal talaabo ku tagayo Afrika kale macnaheedu ma ahan taqwada iska kulligeed ama ahane تقوى خاص أبا جرت وطان هدير سواقي بالني تقوى آن نري تقوى العام هي تقوى الخاص هي تقوى خاص الخاصوي وتقوى خاص كأه هي تقوى خاص الخاص ذاتك آن إلهي ما هنا وح كلب آن أكين ذاتك آن وح معاصي كدعين أو كعراري معاصرة هذا كدعنا إسلام مركبة كتوبت كينيان oo ay ula egtahay sidoo nabigu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam buur ku soo dumaysa oo kale dambigu uu u yahay ee aan dadka kaleeto oo sida diqsi sankiisa ku degay oo uu iska cayriyay oo kale aysan ula mid ahayn dadkaas weeye dadka karaamada noocaas gaara laakiin magaca taqway ka tahay taqwadaas weeye alladina aamanu iimaanku sidoo kaleeto weeye waa kala weyn yahay إيمانكم نبي عليه الصلاة والسلام وعيري هذه لو ميزان لها سيد أبي بكر إيمان كيسا أمدان محمد يدا أوردن سيد أبي بكر إيمان كيسا عصلان لها وحد هلكا كقرنيسا إيمانكم إنو إسخلاف سيهي أو كلوين يهي ما عادوا مركي بدطو إخلاصك إلهي عملك الله خلصا مركو بطو معاصيدا كعراريديدي كفوغانتيدو markay badato markaad xalaasha sidii sayid Umar uu sheegay oo kaleeto oo uu yiri waxaan ahayn buu yiri kuwii ka taga xalaasha waxa oo naqaan tobankiiba 9 baan ka tagi jirnay annagoo ka baqayna inaan xaraam ku dhacno daraadeed marka dadka noocaasa oo xalaashii wixii ay ku shakiyaan ba ka baxaya oo dacma yariibuka ila ma la yariibuka qabsaday dadka noocaas ah maqaamaadkaas oo kale gaara sida badanba ilaahay laakiin qofku doono ayuu gaarsiiyaa kuwa gaala ah yaa inta saacadaas la islaamiya laga dhigayaa masana awliyo laga dhigayaa ilaahay tasarrufkiisa cidina ma hor istaagi karto laakiin taqwada annagaan oo kaleeto iska dhacdhaca ah iyo taqwada karaamada weyn lagu gaaro farqigaas ayaa u dhaxeeya awliyada horta sidaas ayaa lagu yaqaanaa wax kale oo ay leeyihiin oo la yiraahdo midabkaas ay leeyihiin iyo hebleeyihiin absi ilaahay baa lagu yaqaanaa cilmi baa lagu yaqaanaa haddii mar ilaahay uu weli ka dhigo cilmina waa baraya marka jaahil ilaahay weligiis kama dhigan weli hadduu ka dhigana lacallamahu markaasuu baraya cilmi la duni ah sheekh waddankan been baa lagu soo galaa ilaa haddana been baa wax looga qaataa taana ka waran ayaa dhiri macnaha wadamada reer galbeedka ayaa la sheegayaa kolley beenaa lagu soo galaa marka hore iyadoo magacaago been ah waxa weeyaan barnaamijyo kale qof aan ku dharin waa la garan karaa ma banaan tahay marka arrintaasu beenta la sheegayo oo lagu soo galay
oo hadeer la sheegahayo haddii ay ahayd been aad ka fursan kartay ee aad adigu iska dooratay sheegisteeda horena waa xaraam wixii aad ku heshaana xaraam bay noqonayaan haddii laakiin ay ijbaari kugu ahayd oo meesha aan lagaa aqbalayn haddaadan beentaa sheegin beentii daruura ahaan bay kuugu bannaanaanaysaa maxaa yeelay cid aad wax ka khiyaanaysaa ma jirtee waxaad rabtaa keliya inaad ummaddan la noolaato haddaad magacaas sheegato kalena ummadda inaad la noolaato meesha ku noolaato laguma oggola iyaduna waxba ma dhibayso haddii ay tahay been daruuri kuu noqotay oo huriweyto ay kuu keentay haddii ay tahay laakiin adigoo heli kara run inta sheegto inaad waxa aad hadda ku helayso beenta aad ku hesho haddaad heli karto inaad beenta sheegtaa ma bannaano marka su-aasha kaloo sheekha weydiinaynaa waxay tahay dagaalka dawladda iyo kooxaha ay wataan looga soo horjeedo jihaad ma lagu magacaabi karaa xoolo iyo xoog ma ku tari karaa haddaan u waayana ma jeclaan karaa waxa weeye arrintaasi sideedaba jihaad waxa la yidhaahdo nabigaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi ruux annaga naga midihi wuxuu u dagaalaa qabiilnimo mid wuxuu u dagaalaa geesinimo iyo waxbaa taqaanaayoo nin geesi a weeye nin wuxuu u dagaalaa anwaac kale maxaa fii sabiilillaahi ah wuxuu yidhi man qaatala litakuuna kalimatullaahi hiya alculyaa fahuwa fii sabiilillaah hadday horta jirto waxaa lala dagaalayaa gaalo ay yihiin oo aad gaalo la dagaalayso gaaladaasna aad ula dagaalayso liiclaa'i kelimatillaahi ee cadaawad kaloo idin dhex martay iyo midna aysan ahayn jihaad bay noqonaysaa laakiin dad muslim ah waxay la jiraan dawlad waxay la jiraan gaalo hebla waxay u waxaynayaan hebla inta dhiigooda lagu daadiyo ma bannaana jihaadna ma noqonayso wixii lagu bixiyaana xaaraan bay noqonayaan qofka dilaana ilaahay agtiisa aasim buu ka yahay hadduu jihaad la niyeystana waa ku ridoobayaa maxaa yeelay waa shay mujmacu calayhi ah inay xaaraam tahay qof muslim ah in la dilo oo tawxiidaya lama oggola gaalada kuwii ahaa oo aan islaamba weligood soo gelin ayaa dagaal lala galay markaasaa qaar badan laga laayey ayaguna asxaabtiibay rag ka laayeen nin baa markii dambe 2 nin ka daba tagtay asxaabtiina rag badan buu soo laayey markii seeftii lagu soo hoobiyey yuu tawxiidkii diray markaasaa nin dilay ninka dilay wuxuu ahaa nabigu ninka jeclaa buu ahaa aabihiisna uu jeclaa xibbu rasuulillaahi wabnu xibbi rasuulillaahi buu ahaa markaasuu wuxuu yidhi qadiyadii markii loo sheegay yuu wuxuu yidhi aqataltahu bacda an qaala laa ilaaha ila allah markaasuu yidhi ilaahay rasuulkiisu waxay ahayd gaashaan buu ka dhiganayay asxaabtii wuu barlaayey dagaalkii markuu arkay inuusan baxsanayn yuu gaashaan kelimada ka dhiganahayey afalaa shaqaqta can qalbihi buu qalbigiisa maxaa u dilaacin weyda oo arki weyda wax ku jira midaad ka warhaysay wax qalbigiisa ku jira markaasaan idhi buu yidhi istakfir lii yaa rasuulallah dembi dhaaf ilaahay ii weydii markaasuu yidhi buu yidhi kayfa anta bilaa ilaaha ila allah buu haddaan hadda dembi dhaaf ilaahay kuu weydiin lahaa adiga iyo kelimadii laa ilaaha ila allahu see laydiin kala gelayaa buu yidhi ilaa uu yidhaahdo waxaan jeclaystay inaanan maalintaa ka hor soo islaamin ee aan markaas islaamo si dembiga markaa la iigu dhaafo wuxuu ahaa nabigu kii uu jeclaa oo kii uu jeclaa uu dhalay ninkuna gaal buu ahaa asxaabtii buu rag ka laayey intaasoo dhib uu geystay waktigii uu arkay inuusan baxsanayn buu islaamay markaasaa waxay noqotay in ay ku shallaayaan islaamka inuusan soo gelin saxaabigii jaliilka ah maxaad u malaynaysaa qof muslim ah oo tawxiidaya
inaad cudurdaar beena inta u banaysato hebel buu la yiraa hebel buu waxaysanaya aad disho shareecada islaamku ma qabto xaraam weeye qofka banaystaana murtad weeye diintu ka baxaya marka dagaal dad islaam ah dhexdiisa ah jihaad laguma tilmaami karo su'aashan kale waxa weeye ama diyaarad ama tareen ama baabuur ama waxa noocaasa ma lagu tukan karaa dushooda waxa weeye horta marka koowaad haddaad qibladii taqaano aadna qaabili karto istaagidna ay kuu suurto geli kadho rukuucda iyo sujuuddana aad dhammaystiri kadho weel alla meeshaa joogta aad ku tukanaysaa maxaa yeelay dhaqaaqa iyo xarakada baabuurku uu samaynayo tareenkaad ku jirtaa uu samaynayo diyaaraddu ay samaynayso adiga laguu nisbayn mahayo xaraka salaada kaa burinaysa ma ahan waxaa loo nisbaynayaa saa'iqa wada iyo diyaaraddaa loo nisbaynayaa haddaadan intaas heli karin waktigiina uu kaa tegahayo hadday salaadu tahay salaadihii laysu akhiri jirood la dib loo dhigi jiray dib baad u dhiganaysaa hadday subxi iyo wax la mida noqoto salaad suuri ah baad isaga tukanaysaa kursigaaga korkiisa qibladii iyo midnana ma taqaanid markii aad hadhowdii meel qibladii iyo aad ka taqaano aad tagtana waad qadaynaysaa salaadana noocaas ayaa looga tukanayaa haddii aad baabuur iyo wax iyo saaran tahay iyo diyaarad iyo gabar aan meher xalaala ku dhalan ma ku xirantaa nin ku dhashay meher xalaal ah waa su-aasha ugu horeysa oo sheekha la weydiiyey bismi illaahi raxmaani iraxiim su-aasha koowaad gabar horta waxaan jeclahay in aan hal meel ah mashaayikhduna inay u caddeeyaan dadka hadda raggii annaga noogaba aqoonta badnaabaa idinla jooga waxaa jira laba lafdi oo kala duwan mid waxaa la yidhaahdaa mahar midna waxaa la yidhaahdaa nikaax dadka waa isaga darmaan qof mahar ku dhashaa ma jiro qof mahar lagu qabaana ma jiro mahar waa xoolo la qaato oo uu bixiyo ninka gabadha guursadaa uu bixiyo haddii gabadha iyo ninka guursaday aysan isu guri gelin oo ay isfuraan waxaa la siiyaa nis baa la siiyaa maahane kulligiis lama wada siiyo haddii ay isu guri galaanna maharkii oo dhan bay leedahay haddii caqdiga nikaaxa lagu xuso maharka waa sugnaadaa haddaan lagu xusin markii ay isu guri galaan ayaa mahar la yidhaha mahrulmithli uu sugnaadaa hadda waa xoolaha maharka la yidhaahdo waana asbaabta keenta sideedaba in weli wax la yidhaahdo in la shardiyo asbaabta keentaa waxa weeye xoolaha maharka ad ku xisaabtamidooda sidaas daraaddeed ayaa xadiidka nabigu u sugay calayhi salaatu wasalaam asayibu axaqu binafsihaa min waliyihaa waalbikru yusawijuhaa abuuhaa hadday gabadhu tahay gabarh wax soo guursatay ayadaa nafteeda nikaaxeeda uga xaqle weligeeda waxaa loo leeyahay mumaarasay soo gashay rag waa ay taqaanaa maharkeeda waa sheegan kartaa ka baqi mayso gabadha yar oo bikrada ah laakiin yusawijuhaa abuuhaa aabbaheed baa zawjeeya waxaa loo yidhi wax kale ma ahan macnaheedu waxaa weeye inuu ugu xisaabtamo maharka maxaa yeelay iyadu ma sheegan karto waa ka xishoonaysaa xataa idankeedu hadday aamusto idan buu noqonayaa marka mahar waa nooc dad ku dhasho gaara ma ahane nikaax weeye waxa wax ku dhashaan oo caqdiga leh oo caqdigaasi uu asaxaa oo markaas labada qof ay sharci isku qabaan waa nikaax baa la yidhaahdaa waxaan u qaadanaynaa marka in uu su-aashu inay tahay
mahar gabar aan ku dhalan macnaa gabar aan nikaax ku dhalan inay tahay gabadha aan nikaaxa ku dhalani wax dembiyahoo iyadu ay leedahay ma jirto waana la guursan karaa wiil nikaax ku dhashay baa guursan kara waana u bannaan tahay mid kale oo aan nikaax ku dhalanina waa guursan karaa waana u bannaan tahay taas jawaabteedu waa intaas maxaa yeelay iyadu wax dembiyaho ay leedahay lama arko mid aan weli lahayn bay noqonaysaa waxaan kaloo jeclahay in aan meeshaas mas'alo kaloo xoogaa ku dhex jirta aan wax yar iyadana ku daro mas'aladaasi waxa weeye waxaa weligeedba la yaqaanaa axaadiista bacdigoodna ku soo arooray in ayumaa imra'atin nukixat bigayri idni waliyihaa fa nikaaxuhaa baatilun xadiidka horta waxbaa laga sheegaa sidiisaba dacni baa ku jira xadiidkaas laakiin ayimada ugu waaweyn oo ummaddu maanta ka dambayso oo axaadiis looga dambeeyo imaamulbukhaari baa ugu weyn oo nikaaxa inuusan asaxayn weli la-aan shardinaya ma jiru yidhi axaadiista intaan aragnay haddiise uu jiro xadiis noocaasihi wuxuu sheegayaa ama waa gabar addoon ah ama waa sagiiru yidhi hadday baaliqa caaqila tahay xadiis saxiixa oo weligeeda la-aantiis nikaaxeedu ma asaxo odhanaya ma jiru yidhi haddii imaamulbukhaari dad ka aqoon badani jiro waa wax gaar ah laakiin taas bal ha laba fiirsado irshaadu saariga sharaxiisa ka fiiriya kaasaad ku arkaysaan haddii alla yidhaahdo waxay tahay sheekh labada qof ee kala nool ma bannaan tahay su-aashaas dee aan wax yar tawdiix ku sameeyo haddaan wax yar su-aasha tawdiix aan ku sameeyo waxay tahay dadka kolley qurbaha jooga waxay sameeyaan laba qof oo maaragtay isqaba zawjka iyo zawjada kolley waxay sameeyaan kala noolaasho sida maaragtay su-aasha ku cad iyada oo taas hadafkooda uu yahay in amay laba lacag raadinayaan amaba marka hore waddanka ay ku soo galeen ayadoo maaragtay nin aan lahayn ninkeediina kadib oo sidaa isaguna sidoo kale uu ku soo galay labadoodii marka aysan isla degi karinin labadoodba way noqon kartaa haddaan sii tawdiixiyo macnaha hooyada ayaa waxay ku tagtay wej oo maaragtay qaxooti ah aabihiina wuxuu ku tegay wej kale oo qaxooti ah iyadoon laisla soconin ama maaragtay waxa weeyaan sida la rababa maaragtay waxa weeyaan ha lagu tago ama been ha la sheego ama run ha la sheego labadoodii marka islama degi karaan maxaa yeelay dastuurka ama sharciga meesha ay ku tageen nin inaysan lahayn ay ku tagtay ninkan inuusan naag lahayn uu ku tegey kala noolaasho wejkaa wuu noqon karaa wuxuu kaloo noqon karaa ayaga oo maaragta waxa weya labadoodu ayagoo waddankii jooga oo marka hore isla tegay si lacag badan loo helo iyo wax loo helo adduunyo loo jamciyo ay yidhaahdaan waan isfurnay oo waraaqay wax u gudbiyaan oo gaalada markaa ay maaragtay ay u gudbinayaan kadibna ay yidhaahdaan maaragta waxa weeyaan isma qabno ba maaragta waan kala tagnay sidaana laba lacagood ay ku kala qaataanna way dhacdaa marka insha allahu tacaala labada qof oo kala nool ma bannaan tahay noolaashahoodu aniga oo caddeeyo su-aashu macnaha a b sida ay u noqon kartana taas waa su-aasha labaad laba qof oo kala isqabto oo kala noolaanaya horta waxaad moodaa kala noolaanaya macnaheedu labadii qof islama joogaan oo qofba guri buu degan yahay hadday tahay labada qof hadday raadli isugu noqdaan qofba inuu guri dego wax diidahayaa ma jira haddaysan raadli isu ahayn oo gabadhu aysan ogolayn in ninkeedu ka maqnaado xaq bayna u leedahay ama ninku usan ogolayn in xaaskiisu ka maqnaado xaq buuna u leeyaho sharci weeye waa markaas horta marka la dhihi karaa ma kala noolaan karaan marka la dhihi karaa markaas weeye amaa hadday raadligooda yihiin adiguna walaalay halkaas deg adiguna walaalow halkaas deg markii aanun rabno annagaa mar uun isu imaan doonno laakiin dad aan isqabin oo kaleeto hanala moodo inay been sheegaan oo yidhaahdaan isma qabno sharciga waa ku xuntoo lama ogolo been weeye laakiin kala degiddu wax ismiya iyo wax dembiya oo ay leedahay haba yaraatee ma jiro haddii khiyaano jirto
oo dad adiga ihsaan kuu sameeyey aad khiyaanayso oo laba lacagood inaad ka qaaddo aad rabto dadkuna ay yihiin dad muslim ah ma bannaana. hadday gaalo yihiin gaaladuna ay yihiin kuwa cismo leh oo ama ha ahaadeen dimmi ha ahaado ama musta'man ha ahaado ama mucaahad ha ahaado mid kastoo uu noqdo ayagana in la khiyaana ma bannaana. hadduu gaal xarbi ay yahay oo kii la dili lahaa meel walba lagu dili lahaa uu yahay hadday u qasdaan xataa inay inta khiyaanaan lacag khiyaano ugaga qaataan haddaan aysan jirin caqdi iyo ballan ay inta isku waafaqeen oo la galeen ay uga baxayaan hadduu jiro ma bannaana. laakiin waxay isla galeen haddaysan jirin hadday inta u qasdaan yidhaahdaan aan inta kala noolaano laba lacagood ka kala qaadanno ujeeddadooduna tahay gaalkan xarbiga ah aan lacag uun ka qaadno wax ahdiyoon uga baxaynana lama arko waa bannaan tahay wax dhibaataana ma yeelanayso. kala noolaanshahooduna waaba caadi oo ayagaa xaqa iska leh dadka xaqa lehina waa dhaafi karaan xaqooda. awalba jiifku xaq ay leeyihiin buu ahaa ninka iyo naagta isqabaa adigu gurigaas tag adna gurigaas aan tago hadday ku heshiiyaan wax dembiya iyo wax ismiya oo ka raacaya ma jiraan. su-aal kale ayaa la soo jeediyey oo ah aan isleeyahay waa qof dumar ah nin baa muddo 5 sano ah iqabay waana iga dhuuntay weli ma iqabaan ninkaasi. waxa weeye horta meel kasta ha ugu tagtee waddankii hadday ugu tagtay oo uu ka dhuuntay hadduu waddan kaleeto ka aaday haweenka la qabaahi xuquuq ay leeyihiin baa jirta. xuquuqda ay leeyihiin waxaa ka mid ah aratir baa ka mid ah waxaa ka mid ah nafaqo waxaa ka mid ah mucaasharo iyo la dhaqmid baa ka mid ah. intaas haddii ay waayaan xaq ay leeyihiin baa jira. laakiin caqdiga nikaaxu ninka iyo naagta kala maqnaantooda dhuumashada ninku dhuunto meel kale oo uu tago caqdiga nikaaxu kuma furmo kuna fasakhmi mahayo kuna furmi mahayo. hadduu ninku furo waa ay ka furmaysaa. haddii uusan furin xaq bay waxay u yeelan kartaa haddii ninkii cinaadayo oo markay u tagto uu ka dhuumanahayo oo 5 sano iyo 6 sano uu sidaa yeelayo haddii xaakim loo tagaa jiro xaakimkay u tegaysaa waxay leedahay ninkaasi nafaqana ima siiyo dhaqanna kuma qabo waana aan sabri waayey waxaan doonayaa in ninkaas iyo aniga in nala kala fasliyo. ninkaasi wuxuu soo qorayaa qoraal wuxuu u qorahayaa meesha uu joogo xaakimka jooga wuxuu leeyahay qoftaas oo qoftaas ah ayaa dacwaddaa qabta ninkaasaanay u qabtaa waxaa la rabaa in aad ama halka keentaan ama xaqii u sugnaada aad ka qabataan. haddii halkaa la waayo oo meesha ay joogto ay qaadi ka weydo meesha ninkii joogana aan qaadi kala jirin cid ay u tagtana aan la arag waxay heli kartaa in ay samaysato muxakam nin la yidhaahdo oo mansilatul xaakim jooga laakiin qadiyadeeda kaliya gelaya ninkaasay u tegaysaa waxay leedahay waxaan kaa rabaa xaakim baan kaa dhigtay in aad ninkaas iyo aniga arrintayda inaad gasho. arrintaasi waxa weeye ninkaasi intaasu iga maqan yahay sabarna waa sabri waaye wax damboo iigu dhimanna lama arko. asagaa markaa wuxuu leeyahay iyadu u idnayaa leeyahay naftaada fasakh ama asagaa odhanahaya waa aan fasakhay. haddii uu asagii ogaado oo xaqiiqsado oo uu adiladii oo dhan dhammaystiro inuu ninkaani mutawaari yahay oo dhuumanayo inuu ninkaani nin wax u heli karayo oo diidaya inuu xuquuqdeedii ku xadgudbahayo markuu yaqiinsado waa uu ridi karaa xukunka asaguna uu raadli uga noqdo. haddii uusan asagu raadli ka noqon ayaduu leeyahay adigaa xaq u leh inaad riddo fasakhaaga. markaasay leedahay naftayda waa fasakhay markhaatina waa loo yeelaya waana fasakhmaysaa. markaas qof baa wuxuu
كديبان يهي لبا ودن حولنا قالة أقاقاتا marka taas ma banaantahay way ayaduna horta wax qaadashada horay baan u soo sheegnay haddii dad caqdi lala galay oo heshiis lala galay ay jiraan in looga baxaa ma banaana gaalaba ha ahaadeen haddaan wax caqdiyahoo lala galay jirin 3 magaalo iyo 3 wadan haddaad lacag ka kala qaadato wax xumaan ahoo adiga ay ku leedahay sharciga islaamka xaggiisa oo hadda annagu aan naqaani ma jirto wixii uu jahli noo geeyana ilaahay hanaga dhaafo su'aasha saddexaad qof waayeel ah ayaan u shaqeeyaa ma banaantahay kow inaan qofkaas u shaqeeyo lacagta aan ka qaadanayo ma ka soo xajin karaa qof waayeel ah oo loo shaqeeyo iyo qof dhalin yar oo loo shaqeeyo haddii mar qofku uu shaqada kuu dirsado shaqada aad shaqaynaysaana wax xaraam ah aysan ahaynoodan eeyo iyo doofaarro iyo wax la mida aadan ku shaqaynayn najaaso aadan ku dhex jirin oo aadan ku shaqaynayn wax sharciga ku xun haddaadan ku shaqaynayn ee waxaagu khidmo ay yihiin dharkii ood u dhaqayso iyo asagii ood qofkii cunno u karinayso iyo gurigood u nadiifinayso iyo sariirtood u goglayso iyo hadday waxyaalaha noocaasa yihiin sheeko aad u sheekaynayso ood u wehel yeelayso iyo xoogaa meelahaanood soo marmarsiinayso ood soo wadwadayso ood socodsiinayso iyo waxaasoo idil mar hadday yihiin asaguna inuu kugula heshiiyo inuu xoola ku siiyo waa u bannaan tahay adiguna inaad qaadataa waa kuu bannaan tahay mar hadday kuu bannaanaatayna waana ka xajin kartaa waana sadaqaysan kartaa wax kastana waa yeelan kartaa ka waran qofkii asaga oo jooga Yurub arka qof xamar jooga oo xamanaya suuragal ma tahay qofka jooga asagoo jooga Yurub qof xamar jooga oo ama xamanahaya ama ammaanahaya ama wax kale samaynaya ama cibaadaysanaya qofku inuu arkaa mustaxiil ma ahan waxaa tusiya ilaahay haddii ilaahay gaarsiiyo inuu tusiyo waa arki karaa qofku wax ka reebayaana ma jiraan waxaan mustaxiil ahayn oo sharcigu uusan diidaynin looma ictibaarin karo meel laysaga socdo 2 bilood iyo dheeraad iyo 3 bilood ayagoo jooga sayid cumar oo jooga madiina inta col gadaal ka soo galay arkay asxaabtii oo jihaad ku jirta inta dhawaaqay wuxuu yidhi yaa saariyata aljabal bur war buurta gadaasheenna laydinka soo galay war iska fiiriya saariya meeshiisii asagoo joogu asaguna maqlay markaasuu yidhi war gadaal baa nala ka soo galay oo colkii u jeediyey markaasay sidaa gaaladii ku difaaceen haddii sow aragti dheer ma ahan dhawaaq dheer oo meeshaa gaarayay sow ma ahan waxa weeye ilaahay baa bixiya marka waxyaalaha ilaahay bixiyo ayay ka mid tahay qof xamar jooga oo salaad tukanaya haddaad aragto qof xamar jooga oo quraan akhrisanaya haddaad aragto hadda xan uuntii ugu xumayd baa laga soo qabtee wax kastaba ha ahaatee qofku inuu arkaa mustaxiil ma ahan haddii ilaahay maqaamkaas uu ku arki karo siiyo oo araggaas dheer ilaahay uu siiyo ilaahay ma siin cidina ma dhihi karto wax nas oo diidayaana ma jiraan 3 tawxiid uluhiyya iyo rububiyya iyo asmaa wa sifaat yay ka sugnaatay bismillaahi raxmaani raxiim 3 tawxiid waxaan anagu naqaan ma ahan wax shareecada islaamku hadda ay ogoshahayna ma ahan tawxiid al-uluhiyya iyo tawxiid ar-rububiyya wax la kala yiraahdaa ma jiraan ilaah iyo rabbi isku mid weeye qul udcu llaha aw udcu arraxmaana ayan maa tadcuu falahu alasmaa'u alxusnaa buu yidhi ilaahay allah ugu yeer ilaahay oo dheh ama raxmaan dheh waa asmaa buu leeyahay ilaahay sharaf leh buu leeyahay ilaahay asmaa daatadu hal mid a weeye daatadaa ilaahay in la rumeeyo iyo in la beeniyo isku laxdo kaliya ma dhici karto haddii tawxiid uluuhiye la sugo
tawxiid rububiyana la sugo macnaheedu waxay noqonaysaa in qofku uu rabbi rumeeyo uusanna rumaynin ilaah ama uu ilaah rumeeyo rabbina uusan rumaynin wax nooga filanna waxaa nagu ah oo nooga filan ilaahay markii uu caalamu dar markii uu alastu birabbikum lahaa ilaahay haddii tawxiid uluuhiya la yidhaahdaa jiro alastu biilaahikum buu ku dari lahaa su-aasha kale waalidkay hooyaday ama aabahay ma ka xajin karaa aniga oo weligay xajin ayaa la weydiiyey waxay la tahay mashaayikhda idinla joogto dhan baa horta waxoo dhan idiin sheegi doonta laakiin qofku hadduusan xajin qof kale kama xajin karo waxaa shardi ah qofku marka uu xajinayo hadduu naftiisa ka xajiyey markaasuu waalid iyo cid kale ka xajin karaa hadday dad caajis ay yihiin waxaana shardi ah in ay u wakiishaan oo yidhaahdaan inaad iga xajiso inay weydiistaan oo yidhaahdaan iga xaji haddii aysan odhan asagu iskama maagi karo ayagoo nool laakiin haddii uu yahay qof aan naftiisa ka xajin marka hore naftiisuu ka xajinaya markuu ka xajiyo kadib buu waalid iyo cid kale iyo qofkii wakiisha yuu ka xajin karaa asagoo naftiisa ka xajin qof kale kama xajin karo waxaan qaataa lacag dayn ah oo dawladdu leedahay waxaana koraya inta aan qaatay oo kale haddaan waddanka ka guuro la igama rabo ma ii bannaan tahay in aan qaato kolley qofkan waa qof ama shaqaysanaya ayaan umalaynayaa ama qof maaragta wax baranaya oo kale marka sheekh ayaan u dhiibaya su-aashu haddii ay tahay qof ama wax la barayay ama wax la siinayey wixiina laga rabo hadhowdii inuu soo celiyo hadday sidaas tahay su-aashu qofku waa qaadan karaa laakiin hadhow inuu iska celiyaa laga rabaa haddii ay tahay daynkaan qaado daynkaas markaad qaadatana intii lagu siiyey ma ahana intaasoo kalead ku daraysaa jawaabteeda horay baan ugu soo bixinay taasi ribay noqonaysaa inaad qaadato maba bannaanaba markaas maxaa yeelay ribuu noqonahayaa oo waxaa lagaa rabaa ziyaadaa lagaa rabaa haddayse tahay lacagtaan haddeer waxaan ku siinaynaa lacagta intaas la eg lacagtaas marka wax ku baro ama wax ku samayso ayadiina noo soo celi oo hadhowdii markaad shaqo hesho soo celi oo lacagtiina sii waa bannaan tahay taasi waa bannaanaanaysaa laba su-aalood mid waxa weeyaan dadka qurbaha jooga maxaad kula talinaysaa sheekh ayaa layidhi midda kalena waxaa la yidhaha xaggee saaxada caalamka uga jiraan ahlu sunna waljamaaca oo aad tahay ra-iiskooda bismi illaahi raxmaani raxiim waxa weeye horta waxaan hormarinayaa midda ahlu sunna waljamaaca siday u kala muhiimsan yihiin baa loo hormariyaa ahlu sunna waljamaaca waxay ku jireen saaxada azmaantii islaamku soo maray ama ummadda soomaaliyeed soo martay oo dhan ayay ku jireen haddii la yidhaahdo dhinaca dagaalka gaalada lagala dagaalo laga saaro dalka islaamka haddii la yidhaahdo isticmaarka iska kicintiisa ahlu sunna waljamaaca ahlu dariiqa taariikh bay ku leeyihiin cid kule taariikhda ay ku leeyihiin oo kalena maba jirtaba waxaad ka garanaysaan imaam axmed gurey baa ka mid ahaa ahlu dariiqu ahaa maxamed cabdilla xasan baa ka mid ahaa ahlu dariiqu ahaa sheekh xasan barsane ayaa ka mid ahaa ahlu dariiqu ahaa ilaa sheekh uways iyo laga soo gaaro kulligood jihaadka raggii geli jiray gaalada la dagaali jiray weligoodna qof muslina aan waxay ka keenin bay ahaayeen xorriyaddii xataa haddeer soomaaliya rag culimo ah baa u horreeyey oo qaa'id u ahaa weliba waxay ku wada socdeen oo awal jiri jirtay ninka culimada ahi
hadduu ku jiro guddi kasta guddigaasi wixii uu u tilmaamo ninkaas sheekh ah inay raaci jireen. waxaa kaloo dowrkoodu ahaa inay ummadda xaqa u sheegaan, inay waxbaraan, inay tarbiyeeyaan. waxaa dowrkoodu uu ahaa inay markii qofku uu shareecada islaamka barto inay tarbiyo geliyaan, inay dariiqa siiyaan, inay markaa kabacdi uu qofku maqaam gaaro. labadoodu waa kala ratibmaan. shareecada islaamku waa ma'muuraadka la farsoomo iyo manhiyaadkoo laga dheeraado. shareecada islaamkaa la yidhaahdaa shariica weeye. in la baro qofka culimada ayay ahayd mihnadooda, ilaa haddana sidii bay u hayaan. waxaa ku xigta dariiqa, macnaheedu waxaa weeye ixtiyaadi waxa la yidhaahdo ziyaado ah iyo dadaal dheeraad ah oo shaygii shaki yari ku jiroo dhan laga tago, oo shareecada daahirkeedu uu kuu ogol yahay. sidii hadda aan sheegaynay oo sayid cumar uu u yidhi wakunnaa natruk 9 acshaari alxalaal bur makhaafata an naqaca fi lxaraam. waxaan uga tegi jirnuu yidhi 9% xalaasha waan ka tegi jirno, waa iska dayn jirnuu yidhi inaan ku dhacno xaaraamka cabsashadeed daraaddeed. dadaalkaas weeye dariiqa macnaheedu sidaas weeye. inaad ku dadaasho meel khilaaf yari ku jiroba inaad ka fogaatood ka baxdo oo aad ku camal fasho meeshii la yidhaahdo intaasaa shuruud u ah, aad shuruuddaas raadisood ku camal fasho. wixii khilaafi oo dhan inaad ka baxdo. haddii aad shakiso shakigaba inaad iska dayso. meeshaad istiraado ma daahir baa mase ma ahan. shareecada daahirkeedu haddaadan najaaso ku ogeyn waa kuu ogoshahay, laakiin dariiqadu waxay ku leedahay dadaal sameeyo midaad hubto ku tuko. dac maa yuriibuka ilaa maa laa yuriibuka oo aad bay ku leeyihiin. intaasay culimmadu bari jireen. markaa kadibna waxaa laga gaari jiray xaqiiqaa la gaari jiray. su-aalaha aad su-aalaysaan oo idil baa laga heli jiray tajalli ah, oo qofku uu markaas uu arko nuurkii helo oo uu maqiibaad ilaahay tusiyo, oo markaa kadib uu ogaado ilaahay uu ku xirmo oo qalbigiisa uu ilaahay ka arkayo daaco kasta uu samaynayo. culimada horta dowrkoodu kaasuu ahaa. haddana sidii bay u hayaan. al'aana waxaa jira dowr hadda cusub oo la yidhaahdo dhibaatada soomaaliya ka jidha xaggee culimmadu kaga jidha. dhibaatada maanta soomaaliya ka jidhaay waxaa weeye dhibaato xaqiiqda markii la yidhaahdo dowrka culimmadu si uu u qaataa ay adag tahay oo dhib badan tahay. maca daalikana kama baxsana. waxay ku adag tahay sidaad haddaba su-aalayseen oo kale dad muslimiin ah oo dhiiggoodii la bannaysanayo oo la leeyahay waa shareecadii islaamka, oo la dilayo oo la dhacahayo oo dhulkoodii la baabi'inayo. haddii ay arrintu noocaas u dhacdo culimmadu baab ay runtii dhex geli karto ma ahan. meel adag bay ku jirtaa. waxaa culimmada dowrkoodu yahay in ummadda soomaaliyeed laysu keeno, in la heshiisiiyo, in dib u heshiisiin rasmiya la qabto, in loo jeediyo ummadda in ay qolada bannaysanaysa dhiigga islaamkuna joojiyaan. kuwa kaleeto oo iyaguna cadaalad xumada iyo dulmiga samaynayaana joojiyaan. dil inuusan bannaanaynna ummadda loo sheego, isku fikradna la noqdo. markaasna ixtilaalkii dalka ku jira isku jiha looga soo wada jeesto oo markaa weji wanaagsan loo dhaqaaqo. intaasaa culimmadu ay fikrigoodu uu yahay, waana ku shaqaynayaan, waana la wadaa. inta ka dhimanna inaan buuxino ayaan rabnaa haddii ilaahay qadaro. dowrkoodu sidaas weeye. laakiin dhex orodka hadda maanta ah wuxuu u baahan yahay meel gaaladiina qoryasidato oo dagaalamayso, dadkii kalena qoryasitoo dagaalamayo. qof walibana mid walibana uu leeyahay midka kale agtiisa kii istaaga uu dhiiggiisa bannaysanayo. waxaa ka muuqata fasaad weyn baa ka muuqda. fasaadkaa marka mid culimmadu ay runtii inta u bareerto diin ahaan ugu bareeri karto ma ahan.
cabsi ma ahan ka haysa runtii laakiin waxa weeye ka diin ahaan baysan ahayn wax loo bareeri karo oo culimadu waxay rabaan ummadda kala ku dayanaysa iqtidaa biyaa laga rabaa haddii dadku kugu dayanayo haddaad adigu dhiig xaaraam ah gasho oo aad dadka dhiiggiisa banaysato ummadii kugu dayanaysana mas-uul baad ka tahay ilaahay hortiisa ayaguna dhiig xaaraam ay gelayaan ummaday banaysanayaan dhiigooda ayagoo ku ridoobaya weliba marka culimada dowrkeedu waxa weeye hadda in la isu raadiyo horeyna waa u bilaabeen haddana waa ku dhex jiraan waana la dhamaystiraya haddii ilaahay qadaro in ummadda la heshiisiiyo si ay hal jiha uga soo wada jeestaan cadow ka koreeyaana markaa soo geli mayo ciddii dulmi samaynaysana shacbi ahaan baa laysaga celin karayaa dowrkoodu noocaas weeye tacliimtii iyo waxbaridii iyo thaqaafadii iyo diintiina sidii bay u wadaan midaan hadda casriga ah oo cusubna waa bilaabnay oo waa wadnaayo ayadana meel fiican bay noo maraysaayoo dad jaamiciyiina iyo dad ayaa hadda mar dhow noo soo baxaya haddii ilaahay qadaro iyo madaaris badan oo aan furnay ayaa dad badani ka soo baxaya marka caqiidadooduna toostay mihnadooduna toostay kuwaas oo aan rabno inaad adinkuna aad dowrkiina ka qaadataan oo aad wixda aad leedihiin baa meel mari kare culimadu waxay ku shaqayn lahayd waxay tahay haddii dhaqaalaha dibadaha lagu hayo si fiican inta wax loogu qabto labada qof oo inta loo dhiibo jeebka ku shubanaysa laga daayo culimada ma waaweyn oo la yaqaano loo dhiibo culimadu dalkana waa dejinaysaa diinta islaamkana waa faafinaysaa ummadana hanuun bay u horseedaysaa laakiin haddii dhaqaalaha jeebka looga shubto oo dad kaleeto oo yar yara inta laysaga dhiibo ay siday doonaan u tasarrufaan waxaan ka baqayaa in xoogaa meesha adinka laftiinu wax uun ay idinka soo gaaraan waxaan idiin soo jeedinayaa oon idinkula talinayaa horta marka koowaad in aad ilaahay diintiisa qabsataan fiqradii ugu dambaysay weeyoon ka jawaabayo inaad ilaahay diintiisa qabsataan inaad ogaataan ummadda soomaaliyeed saakay ma islaamin islaam bay ahayd weligood intaan nabiga calayhi salaatu wasalaam uusan madiina tegin oo aan islaamku gaarin buu soomaaliya soo gaaray intaasaa la gaarsiiyey waxay ahayd soomaaliya dalka keliya oo ugu aqoonta badan xagga xifdiga qur'aanka ilaahay oo kariimka ah waxay ahaayeen dalka keliya oo aan laga helin hal qof oo gaal ah oo gaalnimo sheegan kara fadligaasna ilaahay baa lahaa asagaan uga shukrinaynaa laakiin culimadaa ayaguna qayb ku lahaa oo gaarsiiyey meel walba afrika iyagaa gaarsiiyey adaawad baa hadda marka ka soo baxday gaaladu ay kula dagaalayso oo ay leedahay waa shuclad ku baxaysa afrika oo islaaminaysa marka culimadu waxay diyaar u yihiin in ay islaamka sidii loo faafin jiray weliba lagu sii daro wax hor allah oo si fiican loo faafiyo madaaris loo furo tacliimtiisii la bixiyo mihanka la baro dad wanaagsan laga soo saaro culimadu sidaas ayay ku shaqaynaysaa waxaan marka idinkula talinayaa inaad culimadiina ku xirantaan oo aad ayaga dhaqaale haddaad bixinaysaan u soo gudbisaan wixii maslaxadda dalka ah iyagaa yaqaana wax qof muslimii bixiyey oo ugu talagalay in dalkiisa iyo dadka dhibaataysan wax loogu qabto in ay xaaraam tahay in qof isticmaalo ayagaa yaqaana ayagaa diintii aan qaa'idka ah ayaga u soo gudbiya dalkuna markaasuu xasilaya markaasaana wax la gaaraya haddii kale waxay noqonaysaa shilinkii aad bixisaani mid dadka lagu dilo mid qof walba lagu gudo mid qofba qofkuu naco uu ku dilo markaasna adinku aad nasiib ku yeelataan oo la yidhaahdo qofkii lacagta bixiyey qayb buu ku leeyahay ilaa la dadka inta la siiyo mid faajiraha laleeyahay orod soo dil dadka qof tawxiidaha ayuu dilaya waad ogtihiin masaajidda dhexdeeda dadkii lagu laayay masaajid ruux ku jira iyo markuu ka soo baxo ruux la dilayo goormaa la nabadgelinayaa islaamka ogolisa xaggee jooga almuslim man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadi sidaasuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam muslim waa qofkii gacantiisa iyo afkiisa muslimiintu ka nabad gasho masaajidka dhexdiisa qofka ku dilaya qofka markuu ka soo baxo ku dilaya
qofka dugsida qur'aanka dhexdooda ku dilaya markaasaa la oran karaa waa dariiq islaami miyaa la oran karaa? lama oran karo. magacyada hadda la bixiyo oo jamaaca islaamiya iyo la yiraahdo qalad weyn baa ku jira. dadku islaam weeye kulligiis, Soomaaliya kulligeed waa wada muslim. kitaabka ilaahay horay bay u haysteen, haddana waa haystaan. ciddii wax ku kordhinaysa dhibaatada ku dhex jirta iyo fidnada in laga shaqeeyo, nabad looga shaqeeyo, waxa dilka la yiraahdana la mamnuuco oo la joojiyo ha ku shaqeeyeen. haddii cid ku shaqaynaysa la waayana waxaan idinkula talinayaa inaad dhaqaalahaad leedihiin culimada aad u soo gudbisaan. culimaduna waxay ballan qaadayaan inay dalka nabaddiisa raadiyaan mar hadday dhaqaale u haystaan oo ay safri karaan oo meelo tegi karaan oo adduunka ay la hadli karaan oo ay dadka laftiisa qofkii dhib ku haya inta wax siiyaan ka diri karaan oo ay shirar u qaban karaan. ummadoo dhan waa hanuuninaya, waana hanuunin lahaayeen. laakiin haddaysanba heli karin inay 10 qof isu keenaan eed qaban kartahay meesha kama muuqato. dad aan ahal u ahaynina uu 200,000 300,000 iyo 1 milyan maalin walba wado. waxaad moodaa in halkaas wax ka soo bixi doonaan. inaad dibna u xisaabtantaan, aadna ka qayb qaadataan wixii dalka dejintiisa ah. haddaan nabad laga helin dalka oo aan dadka la heshiisiin, cid lala dagaali karaana ma jirto, gaalana la iskama kicin karo, wax la gaari karaana ma jiraan. in dadka la heshiisiiyaa u horraysa. haddii fikrad qabiil lagu dagaalo iyo haddii fikrad firqa lagu dagaalana waa isku macno. maxaa yeelay waxaan uun qabiilka ahayna hala dilo weeye macnaheedu. wixii aan firqadaan ahayna hala dilo. hadda taasi labadaasi wax isdhaamaana lama arko. culimadu firqana ma ahan, qabiilna ma ahan, xaashaa lilah. waa culamaa ulislaam, waana u taagan yihiin. dadkoo dhanina waa dadkoodii xertoodii weeye, waa dadkay wax bareen. qofkii ku caasiyoobay isagaa yaqaana. laakiin qof sheegan kara aqoon baan leeyahay oo aan madrasadooda ka soo bixin ma jiro. marka waxay u baahan yihiin taageero dibadeed bay u baahan yihiin iyo daakhil. taageeradaas inaad ugu deeqdaan ayaan idiin soo jeedinayaa. haddee hadalkana waa idinku dheereeyey. intaasaan soo jeedinayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.